cilmiga sayniska iyo fagaagga sare waa aqoon ay ka siman yihiin ummadaha caalamku haba ku kala duwanaadaane. koonkan aynu saarannahay waxaa ku yaalla malaayiin xiddigood oo isugu jira kuwo la garanayo iyo malaayiin kale oo aan la garanayn, amuurta ku duuganna aysan aqoonta aadanuhu weli daah qaadin. waxaa la aaminsan yahay in barashada cilmiga fagaagga sare ay soo bilaabatay kumanaan sano ka hor. markii ugu horraysay ee aadanuhu araggiisa ku fagiijiyey meerayaasha oogada sare waxaa lagu hilaadiyaa wakhtigii xadaaraddii baabil ay ka hanaqaaday dhulka labada webi ee ciraaq. sidoo kale ilbaxnimadii gariigga ayaa qalinka u qaadatay wax ka qoridda kasmadan, waxa ayna dhigaalkooda ku waariyeen dhowr boqol oo sano ka hor dhalashadii nebi ciise. soomaalidu waxay ka mid ahaayeen dadyowgii aqoonta dheeraadka ah u yeeshay kasmada xiddigiska, waxaana laga garan karaa sheekooyinka iyo magacyada ay ula baxeen bahda qorraxda. af soomaaliga xeelu dhalanka ah waxaa laga heli karaa magacyo barax tiran oo ay u yaqaaniin sagaalka meele iyo magacsayaaliinta cadceedda kulaala. waxa ay sidoo kale soomaalidu ka mid ahaayeen dadyowgii aqoonta u lahaa 28 xiddigood ee uu dayaxu u habeen dhaxo. waa xiddigo 28 ah, waxa ayna u kala baxaan 4 waaxood oo min 7 kudladood ah. kudlad walba waxaa la arkaa horraanta 4 xilli ee nurka. haddaynu mid u dul istaagno 4 waaxood, waaxda ugu horraysa waa naafaha, waa horin 7 ah, waana xiddigo xagaa. sidoo kale naafuhu waxay ibafur u yihiin bilowga kaltirsi sannadeedka dabshidka nayruuska. waaxda labaadi waa daalali, iyana waa 7, waana xiddigo dayreed. waa waaxda labaad marka laga soo tiriyo dhinaca dabshidka, sidoo kale waa xilliga koowaad marka laga eego dhinaca dhibicda roobka. waaxda saddexaadina waa cirir, waana xiddigo jiilaal. waaxda afraadna waa raqo ama faraaci sidii hadba loo garanayo, waana xiddigo gu. waa xiddiga ugu dambeeya kaltirsiga dabshidka nayruuska, waana horinta labaad dhinaca dhibicda roobka. xiddiga aqoontu Soomaalidu hore waxay lahaayeen 2 culumo marka laga hadlayo cilmiga xiddigiska. waa xiddiga aqoon iyo xiddiga sheeg. xiddiga aqoonku wuxuu garasho u lahaa kasmada cilmiga xiddigiska, wareegga dayaxa iyo fariisashada godadka 12 mooro ee dabshidka nayruuska. xiddiga sheegana waxaa laga toyan jiray inuu cirka fiiriyo oo inta xiddigaha ka faaliyo timaadada odoroso, isla jeerkaana sanadka soo aadan abaariya aarankii looga talageli lahaa uu kasmadiisa ku tabiyo. si dhab ah ayaana warkooda loogu kalsoonaa. waxayna sidoo kale cirka fiirin jireen habeenka reerka wiil u soo kordho si ay u hilaadiyaan timaadada hanaqaadkiisa iyo waxa uu ku dambayn doono samaan iyo xumaanba. marka la eego kitaabka aynu rumaysannahay iyo qowlka eebbe ee daahirka ah, ma jiro wax ka dhaxayn kara dayax meeraha hardiyey oo xiddig u dhowaaday iyo qof bini'aadam ah oo oogada dhulka ku dhashay, laakiin waa cilmi la rumaysnaa in door ahna wax laga arkay. waxaa la sheegaa in 2 nin oo xiddigis ah oo goor habeen ah hal goob ku wada sugnaa ay maqleen dumar cidaha dhexdooda ka mashxaradaya. kolkii ay dadka weyddiiyeen ayaa waxaa loo sheegay in suldaankii hebel ahaa caawa wiil u dhashay. ninbaa inta cirka fiiriye yidhi, war wiilku doqonsanaa. kii kalaa inta ka daba qaatay oo cirka jeedaaliyey isna yidhi, cimri dheeridu kaga dara. waxaa la sheega in wiilkii suldaan noqday, waana uusan keenin tala rag isku raaco, waxa uuna ra'yiga kala mid noqda riyo tigaad helay. cimrigiisuna wuxuu baarka ka jira 130 gu. waxaynu soo qaadanaynaa mooggaanna dhowr xiddigood iyo cunsurtooda iyo waxa ay ku sheegi jireen raggii hore kolka habeenkaa wiil u dhasho. xiddigga ugu horreeyaa waa naaf madoobe. waxa uu ka tirsan yahay horinta naafaha. wiilka habeenkaas oo kala dhasha waxaa lagu sheegi jira nin nasiib daran oo eeddu qaban og tahay, oo wuxuu falay iyo wuxuusan falinba guudka laga saaro. waa nin u godobooba gashii uusan waa noolna gacantiisa ku geysan. xiddigga labaadi waa garbo. waxa uu ka tirsan yahay horinta daalaliyeed.
wiilka habeenkaa oo kala dhasha waxaa lagu sheegi jiray nin geesi ah oo aan kala cabsataba lagu ogayn, iyo nin dirirtu kala fududdahay wax walba maskaxdaad ku soo dhici kara haba ahaatee ila marmaraybe. waa halkii aadan carab kaga gebiyey mar haddaynu kala guur wadno gabalba meel aaday, gaashaanku maalba ha tagto iyo duul la kaashado garbaaban u dhashay ee weerarkii haysgalaabaxo. xiddigga saddexaadi waa bayaxaw, isna waa horinta daalaliyeed. wiilka habeenkaa dhasha waxaa lagu sheegi jira nin tarma oo isagoo nool tarantiisu ay ciidda ka badato, nin hoodo badan oo halkuu fadhiisto dad iyo dunyaba ay ku soo ekaadaan. ruuxa ay hibadiisa la yaabaan ayay odhan jireen hebel waa bayaxaw iyo habeen dhalad. waxaana qaybo ka tirsan deegaannada soomaalida dhaqan iyo caado u ahaa marka uu dhinto ninka xiddiggaa dhashay inaan meydkiisa la duugin, taa beddelkeedna ay saaraan geed dushii, waxayna ku sheegi jireen in haddii la aaso ay ka dhigan tahay xiddiggii oo ciidda lagu duugay. xiddigga afaraadina waa afqoys. ninka xiddiggaa dhasha waxa uu noqon jiray aftahan hadalyaqaan ah iyo cirkayar geedka hadal ah oo aan baanisaha looga daba dhufan. wiilka dhasha habeenka dayaxu la fadhiyo xiddigga dirir waxaa timaadada laga fili jira inuu noqdo nin laqan ah oo ragannimo dhammaanteed ay harsatay, nimaan cadkiisa loo hunguroon oo golo iyo geedba halkuu isa soo taago loo sara joogsado. waxaa magaciisa lagu ladhi jiray dirir, oo waxaa macquula inaad maqashay nin la yidhaahdo hebel dirir. waa halkii awgaangeela liibaan cabdillegeella farur ka yidhi 14 baan dhashay iyo dirir isininaadee, habartayna aar gudahayay aragtay fooshiiye, maasiibka yaa galay maxaan eel u dhigi waaya. mar haddaynu raggii iyo ka sheekaynay xiddigihiisa, waxaa jira 2 xiddigood oo dumarka halis ku ahaa, waa afagaali iyo agaali. waxaa la sheegi jira in qofta dumara ee ugubka ah islamarkaana curata habeenka 2 xiddigood midkood dayaxu uu la hoydo in ay gelgaasho oo aysan dib dambe u dhalin. waa halkii loo jirku sacaha dhalaya uga heesay afagaalkiyo agaaliha curan iska soo orgood. gabayaagii weynaa ee cabdi maxamed awmagan cabdigalayax ayaa bari gabayga iska joojiyey, waxaana la sheegay muddo ku dhow 10 sano inaan afkiisa wax maansa ah laga maqlin. kolkaasaa dadkii isla dhex mara xan odhanaysa cabdigalayax sugaantii waa ay ka xidhanta. gabay dheer oo uu tiriyey ayuu ku sheegay inaan sugaantu ka gelgaalin, waana isagii lahaa awal maanso waataan gurshay oo gooyey waayadane, in dhoweyd ka gabangaabsadoo wayga garateene, anigoo aan gamin baan nacay ee kama gelgaaleen. fiiro gaar ah waxaa macquul ah in xiddigaha iyo waxyada aynu soo sheegnay magac bixintooda lagu kala duwan yahay, waana arrin la xidhiirta afguriga iyo kala duwanaanshaha luuqadaha ee deegaannada Soomaalida. fiiro gaar ah waxaa macquul ah in xiddigaha iyo waxyada aynu soo sheegnay magac bixintooda lagu kala duwan yahay, waana arrin la xidhiirta afguriga iyo kala duwanaanshaha luuqadda ee deegaannada Soomaalida. warbixintan cilmiga xiddigiska waxaa diyaariyey filsoofer Nuur Daahir Geelle.